afhayeenka xisbiga macaaridka ee wadani barkhad batuun oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlayay xaaladda garsoorka dalka Soomaaliland waqti xaadirkan uu marayo isagoo arrimahaasi ka hadlayay hadaladiisii waxa kamid ah alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nastaciinu ala umuuri dunya wa diin wa ba'd waxaan si kooban uga hadlaynaa sharciga dalka xeerarkii dastuurkii xukuumadda kulmiye siday u laashay ee meesha uga baxday si laga wada warqabo Soomaaliland waxa saldhigu ah ku dhaqanka dastuurka sharciga iyo xeerasheeda kale xukuumaddan hadda kulmiye tirada haysa intii ay timid Soomaaliland waxay isu bedeshay iyadoo ahayd xarunta geeska Afrika ku taala ee xuquuqda aadamaha laga tixgeliyo inay labadii sano xukuumaddan kulmiye ay noqotay iyadoo xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ay ku suntanayd inay noqotay xarunta cadaabul insaanka kadib markii ay iska indhatirtay xukuumaddan ku dhaqanka dastuurka iyo xeerasha dalka xukuumaddani markii ay talada dalka timid dastuurkii dalka u yaalla meel bay saartay xeerkiina meel bay saartay waxayna la soo baxeen xaashiyo ay kala yimaadeen xafiiskoodii kulmiye oo xukunka dalka ay doonayeen inay ku maamulaan xaashiyaha waxa saldhigu ah argoosi adduun urursi ummad kala dirid iyo arrin xumo sida xeerka dalka ay meesha uga saartay waxa kow ka ah inay heshiiskii khaatumo ee kulmiyahan ka horreeyay uu la galay oo quruxda jamhuuriyadda Soomaaliland ah inay qoladani u qaadatay heshiis jifooyin wada galeen meesha ka saartay tixgelin gaarana laha oo isku haynta dalka iyo dadka kow ay ka ahayd fulinta heshiiskaas waxa laba ka ah xadhiga dadka xasaanada leh hadday xildhibaano tahay iyo hadday siyaasiyiinta waa la ogaa xadhigii foosha xumaa ee lagula kacay xildhibaan dhakoor waa sharci jibin weyn maxkamadiiba waxba ku waayey goolihii maxay tahay uu ka tirsanaaba waxba ku waayey mudda la haystay qol argagixisaa la geliyey markii dambena sidii neef xoolaa ayaa la yidhi bannaanka u soo baxay waa sharci jibin waxaa ka mid ah sharci jibinta kale hadal ka dhacday guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland awoodda saddexaad ee dalka in loo diido inuu booqdo xildhibaanka xiran iyaduna waa gaf sharci oo kale la galay waxa gaf sharci ah hay'ado madax bannaan oo xeer ku aasaasan baarlamaan oo saxaafada in lagu xayiro amar wasiir iyadoo ay ahayd amar maxkamadeed in lagu xayiro iyaduna waa gaf sharci kale oo TV-ga Ariel iyo Horyal ayaa amar wasiir u xiran waxa iyaduna gaf sharci ah bahdilka lagu sameeyay hay'adaha dawladda gaar ahaan hay'ad bilaysa waxaad ka warqabteen nin wasiiraha shir jiraayad qabtay intuu saraakiisha ciidanka bilayska oo darajooyinkii ku labisan dabadiisa soo istaajiyay ayaa wuxuu lahaa berigii aad soo weerarteen rasaastan idinku ridayso 7 ma ahayn idinkuna soo 20 gumeydaan riday waa gaf kale sharci nin wasiiro hadlaya oo ciidankii u marxaati qabsanaya inuu rasaas isdhaafsadaan ninka wasiirkii markuu xisbi u jawaabayo ama hawl kale xukuumadeed uu ka hadlayo goormay xalaal noqotay in hay'ad madax bannaan oo bilays oo dalka iyo dadka mucaarid iyo muxaafidba u dhaxa inuu siyaasiyiin xisbiga kulmiya ka dhigo iyaduna waa gaf sharci oo meesha iyaduna ku jirta waxaad arkaysaan wasiirka arrimaha gudaha oo u jawaabaya guddoomiyaha xisbiga musharaxii madaxweynaha oo janankii militariga iyo kii bilayska intuu soo hor fadhiisiyay hortooda ku yooyootamay xisbi macaarid u jawaabay iyaduna waa gaf sharci oo kale oo laga galay hay'adaha qalabka sida ee qaranka gaar ahaan bilayskii militariga laba mid un bayna eekaanaysaa inay aanay mar dambe madaxda bilayska iyo militarigu ayna ficilada noocaas sharaftooda lagu waxyeelay ayna aqbalin iyo inay kula socdaan oo ay ummadda u sheegaan xubno xisbiyada ka tirsan inay yihiin gaar ahaan xisbiga kulmiye waxa gaf sharci ah محمد صديق دمه oo xisbiga wadani ka tirsan oo waaran maxkamadeed loo hayay
oo la macmaluuqayo oo maxkamadda marka la keenayna aad moodo qof dilay 20 qof oo ciidanka bilayska iyo hubkooda oo dhan lagu ilaalinayo iyaduna waa gaf sharciyo wax la aqbali karayna maaha waxa kale oo gaf sharciya xildhibaan gar adag oo aadan xaaji la ilaahdo in uu xidhan yahay 2 bilood maxkamad militarina la saaray xasaanad buu leeyahay dad baa doortay haddii dembi lagu hayo ama uu maxay tahay maxkamad shicib buu xaq u leeyahay in xasaanada laga hayo buu leeyahay iyaduna waa gaf sharciyo waxa gaf sharciya in bando lagu soo rogay 3 عبد الناصر أحمد حسن تلفزيون عالمي كرويال تي